lix ka mid ayaa la dilay halka mid kalena la hayo rag dhawaan qarax kula beegsaday buraha caalamiska ee gobolka bari ee Puntland. Allah u naxariistay General Qaryare oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira kooxaha argagixisada ah ee Daesh. kuwii miinaystaa ururta oo soonaha ku harayo baanka janka miinada u dhigay oo miinada dhigi jiray toddoba yahaayeen lixna waa la dilay nina waa la hayaa. Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha dowladda Puntland ayaa sheegay in raggaas qarax la beegsaday General Qaryare lix ka mid ah la dilay halka mid kalena la hayo. Waxa uu sheegay in raggaasi ay ahaayeen ragga inta badan miinooyinka u aasi jiray ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka ku jira kuna safraya buraha caalamiska wadooyinkooda ee ka yimaada magaalada Boosaaso iyo sidoo kale deegaanada kale ee Puntland ama wadada isku xidha caalamiska iyo sidoo kale deegaanada kale ee Puntland. Waxa uu sheegay sidoo kale in ilaa 30 iyo dhowr nin oo ka tirsan kooxda Daesh dagaal lagu dilay ay ciidamada difaaca Puntland la galeen kadib intii sarkaalka la dilay. ciidamada difaaca Puntland ayaa ku jira argoosi markii hore hadii ahaayeen kooxda Daesh sifeeya hadda waxa ay ku jiraan argoosi ka dhan ah kooxda argagixisada ee Daesh maadaama ay dileen sarkaal muhiim u ahaa ciidamada dagaalka ku jira iyo sidoo kale dadka reer Puntland ba kooxda Daesh ayaa hadda la sheegaya in deegaano kooban oo lagu hareeraysan yahay ay ku hareen sidoo kalena saadkii iyo cuntooyinkii ayaa la sheegaya in iyagana laga xiray balse waxaa la rajeynayaa in bilaha soo socda gabi ahaantoodba kooxdaas la soo afjaro. waa guul muhiim ah mar haddii la dilay oo dadka reer Puntland u soo hoyatay mar haddii la dilay qaarna la hayo raggii qaraxa la beegsaday. Allah u naxariistay General Qaryare oo ahaa nin muhiim u ahaa dagaalka ka socda caalamiska iyo sidoo kale sidiisaba maadaama uu yahay nin ilaa iyo dowladda Soomaaliya soo shaqeynayay khibrad ciidan oo tiro badanna ay ku duugan tahay inkastoo kumanaan iyo boqolaal qalyara oo kala ah ay Puntland joogaaniin. intaas ayaa kusoo koobaynaa barnaamijkeennii maanta. haddii halkan nala soo gaartay wax ka codsanaya YouTube ku soo biirto oo subscribe dhaxdo muuqaal